بسم الله الرحمن الرحيم. وحول أدونك يا لابا معنى له سمد ولبنا صفة له أرن ولبنا بقدد بن إيا بق ظاهرة له تلسوم ومد كميدا شركadaha Soomaalida ee ugu koritaanka iyo dhaqaalaha badan ummadda Soomaaliyeedna waxa ay ugu jirtaa kaalinta biyaha iyo hawadu ugu jiraan balse sidee ayay kaalintaas ku gaadhay waa maxay macnaha astaanteedu xilligii ay faraacintii Masar gumaysan jireen Yuhuudda waxa aqoonta ugu badan ee la isu gudbiyay ay ahayd sixirka waana sixirka gogoldhigga u ahaa in ay faraacintu dhistaan buuro saddex gees ah kolkii uu Nabi Muuse diintiisii la galayimina waa tii la yidhi waa sixir ee sixiroolayaashii la isu keenay si ay isaga caabiyaan sixirka ay ku ganayeen Nabi Muuse ilaahayna isagoo sifaynaya waxa uu yidhi wajaa'uu bisixrin cadiim sixirkaasi waa nooca sixir ee adduunka ugu xooga badan magaciisuna waa kabaala afka carbeedna waa sixrul iqbaal afkeena hooyana waa sixirka madiidada waxaana lagu maamulaa garaadka aadamaha sixirkaas waxa adeegsada shirkadaha ugu waaweyn caalamka si uu wax soo saarkoodu qiimo u yeesho bulshada oo ay u adeegsadaan waxa sidoo kale adeegsada fanaanada ciyaartoyda iyo jilaayada si loo jeclaado oo loo taageero sixirkaasi waxa uu leeyahay astaamo meel kasta oo ay astaamahaasi yaallaanna waxa ay gudbinayaan sixirkii oo dadka ayay garaadka ka qabsanayaan oo ay waxaas ay ku leedan yihiin jeclaysiinayaan una tusayaan in aanay ka maarmayn marnaba labada astaamood ee ugu tunka weyn ee sixirkaas gudbiyaana waa isha oo u taagan ishii dajaal cawar ahna sababta uu fidnada adduunka ugu weyn ku noqday iyo astaanta saddex xagalka oo ah halka laga soo dheegtay dhismaha buuraha ahraamta ee Masar in ay yihiin labada astaamood ee adduunka ugu sixirka badanna igahoo caddayntii halka dollar dhabarkiisa waxa ku sawiran saddex xagal dushana ilyari ka saaran tahay waana sixirka sababay in uu noqdo dollarku lacagta adduunka hogaamisa haddaba daawade ma u fiirsatay astaanta shirkadda Telesom waa labadii astaamood ee sixirka ahaa ee adduunka ugu saameynta badnaa oo isbarkan caddayntiina waa tan waxa ay gudbinayaan sixirka ugu saameynta badan ee garaadka aadamaha lagu maamulo sidaas awgeed ayay Telesom inoogu gashay kaalinta ay biyaha iyo hawadu inoogu jiraan sidaas awgeed ayay ruux kasta oo laba kaadh sita kaadhka koowaad ugu jirtaa sidaa awgeed ayay ganacsigeena iyo dhaqaalaheeniba gacanta ugu dhigtay waxa intaas dheer shaqaalaheeda oo dhammi waa culimo aqoon-yahano ah ilamana aha in ay wada moogan yihiin astaantan iyo saameynteeda sixir waana dadkii ay ummaddu diinta iyo aqoontaba u daba fadhiisanaysay haddaba maxayna la gudboon ugu horreyn waa inaynu u nasteexaynaa mulkiilayaasha shirkadda iyo howlwadeennadeedaba oo mooganaanta ka baraarujinnaa kuna guullaa inay wax ka beddelaan marka labaad meel kasta oo ay astaantani ku taallo waa inaynu iska tirtirnaa oo masaxnaa xataa kaadhadhka dushooda waa inaynu ka masaxnaa mar saddexaadka waa inaynu diinta aqoon u yeelannaa oo barannaa ducooyinka sixirka lagaga hortago si aanay saameyntiisu inoogu baahin ogoobey astaamaha sixirkaasina maaha labadan oo keliya ee way tiro beeleen haddii ee beedmana inta ugu badan ee nolosheenna asaasiga ah ku dhex qasan ayaan soo gudbin doonaa daawade ma cadaawi li'ide ha digtooni la'aan